bismillahi raxiim. runtii waa mahadsantahay marka hore. dareenkayga waxba iskama bedelin. aniga markii horeba anagoo xil haynin ayaan dadka soomaaliyeed ugu adeegayay ujeedkayga iyo aragtidii siyaasadeed. maantana waxaa soo kordhay in deegaankan aan ka soo jeeday iyo dadkiisa ay ii idmadeen xilkii iyo mas-uuliyaddii matalaadda golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, taasoo runtii ah mas-uuliyad dheeri ah oo sii xoojinaysa dadaalkaygii aan ku matalayay ayaga iyo shacabka soomaaliyeedba, oo ku saabsanaa xagga dhismaha dowladnimada iyo hirgelinta nidaamka dimuqraadiga iyo saraynta sharciga iyo dastuurka. bal sidee bay ku dhacday doorashada? qaabka ay ku dhacday sidee u aragta adiga? kama duwana doorashooyinkii meesha ka dhacayay, oo waa la mid oo idinku aad tabinayseen ama warbaahinta kale ay tabinaysay. keliya waxay tahay uun maadaama beesha kursiga ay leeyihiin jufo ama beel hoosaad loo qeybiyey soomaaliya 4.5 beesha ayaaba intaan howl doorasho la gaarin kursiga bannaanka iigu garatay. walaalihii kale ee u tartamayana ay runtii ay ka hareen oo ay ka tanaasuleen. marka runtii waxaa la oran karaa kursiga doorashada waxay ahayd uun keliya process, laakiin kursiga bannaanka ayaa dad doorasho deegaankiisii ay dadkii ay waana ku maasan yihiin ku matalaya ay kusoo bixiyeen. muddo dheer aad iyo aadaan uga mahadcelinaya. muddo dheer waxaa diidanayd in kursi la isu xiro, marka hadda in kursi lagu xiro sidee u aragtaa? kursi la ii xira ma jiro. kursiga dadkii u tartamayay ayaa ii tanaasulay. beeshii aan ku matalayo waanba kuu sheegaa bannaanka igu siisay. marka inaad iska hubisaana ila fiican. aniga kursi la ii xira ma jiro. qof walba inuu u tartamo waa u furnaa, laakiin dadkii ayagaa gartay inaan ku matalo oona ka tanaasulay oo bannaankiiba ku tanaasuleenba. haddii marka walaalow kursi qof loo xirayaba anigaa laga xiri lahaa. waad ogtahay meesha aan kala joogno nidaamka iyo dowladda hadda ka talisa dalka. doorashadan maxay adiga kaaga duwan tahay kuwii hore ee aad dhaliili jirtay? doorashada waan dhaliilnay, waa la joojiyey, habraacyadeeda waa la saxay. inaad la socoto malaa taariikhda lama socod walaal ay soo martay proceska doorashada. doorashada waan dhaliili jirnay, waa run. waa la isku yimid, golihii watashi qaran waa kii isku yimid, waa kii la saxay habraaciisii, waa kii midooda musharaxiinta aan ka mid ahay qayb ka ahaayeen, waa kii aan ayidno taageernay. waxaa ila quman dee inaad dib u raacdo siday wax u socdeen. adoo mahadsan. adigu ma qabtaa in doorashada la adeegsado waxa la yidhaahdo malxiis? ma kula tahay weli inay socoto? adiguse hal qof baa kula tartamaya hadda. dad badanna waxay qabaan in arrintuun isku meeshii ay tahay. ma kula tahay sidaas? walaalo waxaa ila habboon su-aalahaas waan ka jawaabay. waan kuu sheegay kursigan dadkii lahaayaa bannaanka ku bixiyaan ku dhahay. waxa kalena habraacii process ay ahaayeen. falceliska dadka soomaaliyeed ay ka bixiyeen iyo siday uga jawaabeen. idaacad baa tahay halkaas inaad aadda ayaa ila quman. aan xoogga saarno sida dadka soomaaliyeed ay ugu heelanaayeen iyo taageerada ay u muujiyeen iyo sida ay ugu faraxsan yihiin guusha aan maanta gaaray, taasoo ka turjumaysa hiddahooda iyo dhaqankooda dulmadiidka ah, madax bannaanida iyo dimuqraadidoonka ah, iyo halgankii ku salaysnaa 5 sano aan ku soo jiray inay dowlad wanaag dalkan ka dhacdo. halkaas inaan isla aadnaa ila quman. su-aashiisaada waa kaaga jawaabay dhowr jeer. maanta maadaama aad soo baxday, adiga muhiimadda ay kuu leedahay arrintan iyo waxa aad qaban doonto maxay yihiin? waan kuu sheegay walaal, muhiimadda ay leedahay anigoo xil hayninaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu adeegayaan ku idhi 5 sano oo joogto ah inaan ka ilaaliyo kala telisnimo, inaan ku ilaaliyo nidaamka dimuqraadiga inuu hirgalo, dastuurka inuu shaqeeyo, dowladnimada wanaagga inay shaqayso, sharciga sharciga inay shaqayso. taasi waxay ka turjumaysaa sida dadka soomaaliyeed ay hiddo ugu leeyihiin inay kala telisnimada diidaan, inay dulmiga diidaan, inay dad xor ah oo madax bannaan oo dimuqraadiyadda jecelna ay yihiin. waxaad ka garan kartaa sida dadka soomaaliyeed ay uga falceliyeen, hadday tahay warbaahinta caadiga, hadday tahay midda baraha bulshadaba. anigana taas ayaa dhiirigelinaysa. taasaana ii ah niyadda aan 5 sano ku soo socday, haddana aan ku socon doono dowlad wanaag, dimuqraadiyad iyo saraynta dastuurka. waana mahadsan tahay. waxaad horey u tartamaysay madaxweyne, marka haddana xildhibaan baa u tartantay. marka ma ballan qaadaysaa haddii aad madaxweyne noqoto waxa aad noo sheegtay inaad ka dhammayn doonto? walaal, ballanqaadkayga madaxweynenimada iyo tartankiisa wuu dhiman yahay. xilligiisana ha la gaaro. waxaan dadka Soomaaliyeed u ballan qaadana way ula xisaabtami doonaan. allahna nagu guuleeyo. tanna waa bilowgeedii. waana mahadsan tahay. asalaamu calaykum.